halkani waa deegaanada si jeeda ee saraarta godan telefishanka caalamiga Honka Beltifi oo u kurgalay duruufaha ku gadaaman bulshadaasi ay soo foostartay biyalaanta baasan ayaa waxaanu kormeer ku maray deegaano hoos yimaada gobolka Saraar ay ka mid tahay degmada Dhanaano Waridaad Wiriir barkada Cali Xirsi iyo kaamamka ku yaala magaalada Caynaba bulshadaasi ay soo foostartay biyalaan baasan waana kuwan iyagoo la hadlay telefishanka caalamiga Honka Beltifi noomanahay magaalo iyo kaaman ka dhaw haraad baan nahay hooyooyinka waa aragtay iyada naga baxaysa ilaahay idin barakeeyo biyo degdega oo caawima ayaa lu dooreynaa inaan la soo gaadhaan haraad xun baa far nagu haya insha Allah bidmilaahi karin idin karayna xasanaad iyo khayr haydiisiyo dhanka kale waxay sheegeen xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Biixi inay u ballan qaaday xilligii lagu jiray ololaha doorashooyinka sanadii 2017 cilbiyood laga hirgelin doono magaalada Caynaba cilbiyoodkaasi oo haatan laga joogo muddo afdam u suurtagelay madaxweyne Biixi ayaa tiraba 2 jeer ku soo noqday gobolka Saraar marka laga yimaado ololihii doorashooyinka ee sanadii 2017 isagoo talada dalka haya madaxweyne Biixi waxa uu mar labaad u ballan qaaday bulshada inuu cilbiyoodkaasi hirgelin doono meeshaan ay hadda ka dhacday abaar laba jiri waanaan dayr arag guri arag biyo macaan markii hore dawladdu tiri biyo macaan baardin soo saaraya dawladuna biyo macaan weyday booyadna weyday markaan waxaan leenahay markii hore cod bay naga doonayeen waxaan biyo macaan baan idin qodayna dhaan baan idin qodayna naamna ma hayna biyo macaan ma laakiin waxaan leenahay gacantii bilaadiga iyo madaxweynuhu wuxuu noo sheegay iyo wuxuu golayaashu noo sheegeen iyo wixii mas'uuliyiintu noo sheegteen ma hayno kala guur aan ku jirno laakiin waxaan leenahay war waxaad leedihiin dadka haddaad wax gashataan waxbaad ka heshaa haddaad waxba gashan weydana dee waa samriye imaan dadka wixii aad gashataa baad ka helaysaa haddaad waxba haddaan ra'yiga ka dhiibto arrinkan aanu ka hadlano ceelbiyoodkii ugu talagalay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland magaalada Caynaba xilligii uu doorashada u ololeynayay iyo xilligii ka dambeystay doorashada loogu riday dadweynuhu ugu guray ku guuleystay intaba haddii aan ka hadlo waxaan leeyahay ceelbiyoodkii aad madaxweyne tii waan ka samaynayaa gobolka Saraar magaalada Caynaba weli sidii ayaa dadweynuhu u sugayaa duruuftii ugu adkayd oo abaareed iyo tii biyo la'aanida hadda ka jirta biyuhu waxay noo jiraan nolol ka keenaa 260 kilomitir 130 kilomitir oo tagdheeriye isu jiraan Caynabo iyo 130 kilomitir oo dambe oo go'an baaga biyo la'aanta ka jirta waa wax la yaab leh meelaha laamiyada ka leexsanna waa la yaab waxyaalaha uu madaxweynuhu noogu ballan qaaday inaanu ka weynaa wallahi waa arrin qalafsan waayo waxaan misna war malaha gobolka Saraar iyo magaalada Caynaba talo makiilka sanaadba wax la yaab la 4 sano ay ka soo wareegtay cod buu naga waxaan u qaadanay de madaxweynuhu inuu cod uu nagaga rabay inuu kursiga fuuloon laakiin wax dan oo kala aanu naga lahayn codkiina iminkana la isu baahan yahay oo ay isu baahan yihiin dadweynaha iyo madaxdu cid kastoo meesha timaadaba waxaan ka codsanaa madaxweynuhu inuu arrinku noo ballan qaaday oo noo hirgeliyo bariga waa dhibaatada ugu weyn ee ka taagan waa biyaha magaalooyinka ama waa biyo qarar ama way biyaayeen oo kala fog yihiin biyaha macaan Saraar Caynabo ballanta koowaad waxa weey riiga oo horeeyna soo gala in magaalada biyo macaan loogu doono maaha waa loo yaxanaya maaha codayna siinayaan bina aadmigu biyo u baahay magaalada kale way biyaayeen laakiin waxaanu haynaa sahan oranaya Caynaba biyo waxa u jira 7 kilomitir 7 kilomitir ama 8 kilomitir biyaheeda waynu qodi karnaa riiga ugu horeeya balantaas waa koob wana balantii horeeyay cid ka qaado waan idin sheegaya waayo biyo 7 kilomitir jooga dumarkii carruurtu ka qataraan maayaan deegaanada gobolka Saraar biyaha waxaa looga soo dhaamiyaa magaalada Burco qiyaas ahaan biyahaasi waxay soo socdaan masaafo 130 kilomitir halka foostada biyaha laga siiyo 30,000 shilinka Somaliland walowse dadkaasi aan awoodin badankoodu una badan yihiin dad ay abaari saameysay isla markaasna ay ka dabar jartay xoolahoodii walowse ay xukuumadda waqti xaadirkan uga fadhiyaan cilbiyoodkii uu madaxweyne Biixi u ballan qaaday bulshadaasi cilbiyoodkaasi aan waqti xaadirkan lahayn si kastaba ha ahaatee bulshadu waxay la ildaran tahay biyo la'aan soo food saartay
وعلي آدم در علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا.